asalaamu calaykum waraxmatullah daawadayaal kusoo dhowaada wax kasto tv waxaan idinla hadlayo faraseef maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda buugga la dhaho Guinness World Records ama buugga mucjisooyinka caalamka. kontonkii sannadood ee uu buugga jiray waxa uu iibiyey in ka badan 100 milyan oo koobi, taasi oo ka dhigaysa buugga ugu daawacaadda badan adduunka. kaliya waxaa ka iibsasho badan buugga Bible-ka, kitaabka Qur'aanka Kariimka ah iyo buugga Gudoomiye Maayo. hadda loo yaqaano Guinness World Records waxay iibisaa qiyaastii 3.5 milyan oo buug sanadkii, waxayna ku iibisaa 23 luqadood. dhanka kale, dadka adduunka ayaa ka kobcay 2.5 bilyan oo kaliya ilaa 6.3 bilyan, laakiin daawacaadda ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa inay jiraan diiwaano weli taagan ama rikooro weli taagan xitaa 50 sano kadib. Christmas-ka cad ee Irving Berlin ayaa weli ah heestii ugu iibinta badneyd adduunka. ninka ugu dheer ee noolaa weli waa Amerikaan la yiraahdo Robert Pershing Wadlow, kaasi oo 1940kii lagu cabiray 8 feet ama 2 mitir iyo bar. dhismaha xafiis ee ugu weyn weli waa Pentagon oo laga dhammaystiray 1943. wadar ahaan cabirkiisu waa 17 mayl ama 27 kilomitir iyo 754 daaqadood. intaasi oo dhan waa hal xafiis. waxay ku soo dhowdahay masaafada u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad oo 30 kilomitir ah. sheekada buugga waxay ka bilaabatay xaflad toogasho ah oo ka dhacday Ireland 1951 markii agaasimaha maamulka ee Guinness Brewery Sir Hugh Beaver uu isku dhex arkay dood ku saabsan in shimbirka Bolver oo dahabiga ah uu ahaa shimbirkii ugu xawaaraha badnaa ee Yurub. wuxuu raadiyay buug isaga siin doona jawaab awood leh, midna ma uu heli karin. wuxuuna mooday inay fikrad fiican tahay haddii uu mid jiri lahaa. orodyahanka Chris Jatway ayaa xilligaasi u shaqaynayay shirkadda Guinness. wuxuu kula taliyay walaalaha mataanaha ah ee Norris iyo Ross MacArthur oo labaduba ku guuleystay abaalmarinta Blues inay yihiin orodyahano Oxford, waxayna ka wadeen shirkadda daabacaadda iyo wakaaladda xaqiiqo raadinta ee London. Norris MacArthur wuxuu ahaa ku dhawaaqihii orodka Oxford 1954kii markii Roger Bannister uu rikoorka u yaalo maylka oo ah 4 daqiiqo, taasi oo dhiirigelin cusub siisay mowduuca diiwaanka oo dhan. Guinnessna si habboon ugu wakiishay buugga. waxaa la sheegay in waxa ku qanciyay MacArthurska ay ahayd jawaabtoodii saxda ahayd ee degdega ahayd markii wax la weydiiyay sida luqadda ugu shaqalada yar ee adduunka. jawaabtu waa Turkiga. isku darka xiisaha qalafsan iyo raadinta faahfaahinta xasuusta cajiibka ah, labada MacArthurs waxay ahaayeen tifatirayaasha, isku duwayaasha iyo ruuxa dhaqdhaqaaqaya ee shirkadda. laga soo bilaabo 1972 waxay ahaayeen wajiyo lagu yaqaanay barnaamijka Roy Castle's Record Breakers ee caruurta, kuwaasi oo si joogto ah loogu meeleeyay goobta si ay u muujiyaan isla markiiba xusuusta xaqiiqooyinka iyo tirooyinka daahsoon oo aan weligood la qabsan. Ross MacArthur ayay RRA ku dishay albaabkiisa London 1975 kadib markii uu bixiyay abaalmarin dhan 50,000 oo pound si loo soo qabto argagixiso. Norris MacArthur wuxuu sii ahaa tifatiraha buugga ilaa 1986, kadibna wuxuu ahaa kaaliyihii tifatiraha. waxa kale oo uu ku mashquulay ururka xorriyadda iyo isku dayo uu dib ugu celinayo. waxa uu arkay awoodda isdhaafsan ee dowladaha iyo ururada shaqaalaha
ugu dambeyntii wuxuu howlgab noqday 1996 wuxuuna ahaa 78 jir markii uu dhintay asigoo ciyaaraya ciyaarta tenniska 2004. buuggu wuxuu isku daray saxnaan dhab ah iyo baaxad ballaaran. wuxuu ku faafay meel ka baxsan isboortiska, injineernimada, sayniska iyo tiknoolajiyadda, fanka iyo madadaalada si loogu daro macluumaad la yaab leh. si keliyaha ugu weyn ee la yaqaan sayniska, kuwaasi oo miisaankoodu ahaa 5 kiilo. akhristayaasha waxaa lagu dhiirigeliyey inay dhigaan rikooro cusub oo iyaga u gaar ah. si kastaba ha ahaatee, waxaa wax lagu qoslo ah sida yoodalkii ugu weynaa, qayladii ugu dheereed, qayladii ugu badneed oo la qayliyo. yoodal waxaa la yiraahdaa qaylo hal mar la qaylinayo. waxaa ka qayb qaatay 937 qof oo Jarmal ah sanadkii 2002, ama dhammaan sheegashooyinka si adag ayaa loo soo hubiyaa oo loo xaqiijiyaa. waanaga intaa daawadayaal, nagu taageera like-ta. buuggan Guinness taariikhdiisa waa soo koobnay, laakiin mustaqbalka dhow waxaa ka sameyn doonaa fiidiyoyaal badan. rikoorada buugga ku qoran silsilad ayaynu noqon doontaa ama musalsal camal. marka nagu taageera, waan ku cusubnahay YouTube-ka, soo dhaweeya. waad mahadsantihiin daawadayaal. nabadey. Do it! Do it!